Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Conversation with sheekaysi. What are you telling? Maxaad sheegaysaa? What is up with my affairs? Afaarihaygane maxaa kaa galay? No, maya, balse I am waxaan ahay your sister walaashaada and giving you iyo waxaan ku siinayaa advice waano. The way wadada you are walking aad ku socoto is wrong, waa qalad. Who said to you, yaa kugu dhahay, you are not, adiga ma tihid, my sister walaashayda. Mind up your business, farax kala bax. No matter, dhib ma lahan. May I follow you, ma ku soo raaci karaa this afternoon, galabadaani. Really, runtii, you want to dine, dhimashaad rabtaa. Allah kills something, Allah wax dila, and you can't kill nothing, adigana waxba ma dili kartid. So, sidaa darteed, don't horrify me, ha i waabsanin. But balse, you will be a reason in my hand. Gacanteyda ayaad sababsan doontaa. And keep your bones from me, lafahaagana iga ilaalso. I swear in the name of Allah, magac Alle ayaan ku dhaartaye, you will see something with your eyes, indhahaaga ayaad wax ku arki doontaa. You are still singing a song, wali waxaad heesaysaa hees, with no music and music lahayn, and I can't dance, anigana ma ciyaari karo. What can I do for you? Maxaan kuu samayn karaa?